iyadoo ay hubaal tahay in kuuriyada waqooyi ay haysato hub casri ah ayaa barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa bal waxa ka jira hadalhaynta ku saabsan inuu dalkaasi haysto noocyo ka mid ah hubka oo aanay dalalka waaweyn heli karin. gantalaha noocoodu yahay KN 12 iyo KN 15 ayaa ka mid ah hubka kuuriyada waqooyi isku haleynayso iyagoo ah laba gantaal oo isku mid ah, laakiin gantaalka KN 12 uu yahay mid dhanka badda loo isticmaalo oo laga soo ridi karo oo kaliya maraakiibta quusta, halka gantaalka kale ee KN 15 uu isna yahay gantaal laga rido saldhigyada bariga ku yaala. waana gantaalaha cusub ee kuuriyada tijaabisay sanadihii u dambeeyay, iyagoo waliba gantaalaha barigu yihiin kuwa saaran gawaarida loogu talagalay isla markaana dhaqdhaqaaqi kara oo dhuumaalaysan kara ayna adag tahay in la dahaqaado. waana gantaalaha gaari kara masaafo 2000 oo kilomitir, tusaale ahaanna duqeyn kara dalalka Jabaan iyo Mareykanka. waana gantaalka xambaari kara madaxyada nukliyeerka iyo kuwa kiimikada. xuduudda labaad ee ay ku tiirsan tahay quwadda militari ee kuuriyada waqooyi waa ciidamada sida gaarka u tababaran ee commandosta oo ah ciidanka uu saaran yahay waajibka koowaad ee difaacidda dalkaasi. waana ciidan ka kooban 180,000 oo askari oo xeryaha ku diyaara. waana ciidanka gaarka ah ee u qorshaysan inay ka dagaalamaan furimaha hore ee dagaalada, iyagoo qaarkood hoos maraya godadka dhulka hoostiisa laga qoday, qaarkoodna mawjadaha badda ku dhumanaya, halka qaarkooda kalena ay hawada sare baarashuudka kaga soo daadan doonaan. gawaarida gaashaaman ee dagaalka ee noocoodu yahay KN 9 ayaa iyana ah qayb kale oo hubka kuuriyada waqooyi ka mid ah, waana gaadiidka dagaalka ee xambaarsan gantaalaha ridada culus. waana saanada ay soo bandhigeen sanadkii 2013, iyadoo la aaminsan yahay inay farsamada gantaalahani ay leeyihiin dalalka Shiinaha ama Ruushku. waana gantaalaha tiigsanaya masaafo 100 kilomitir, waxaana adag in loogu yimaado halka uu gantaalaha ka rido maadaama uu saaran yahay saanad dhaqdhaqaaqaysa. waana gantaalaha ay sida fudud ugu garaaci karaan caasimada kuuriyada koonfureed ee Seoul. waxaana dadka arrimahan u dhuundaloolaa qaarkood aaminsan yihiin in madaxyada gantaalaha noocan ay xambaari karaan hubka kiimikalka. dhanka kale, kuuriyada waqooyi waxay haysataa taangiyada dagaalka ee casriga ah, iyadoo si weyn tiknoolajiyadeeda ugu soo hormarisay taangiyada dagaalka ee noocoodu yahay B-72 iyo TT2 oo ay Ruushka iyo Shiinuhu kala sameeyeen. waxaana ay kuuriya ku soo rakibtay dhuun labaad oo madaafiicda laga tuurayo iyo qori boobayaasha culusa. waana taangiyada ay suuragalka u tahay inay ka adkaadaan oo ka tallaabsadaan taangi kale oo kasta oo ay ciidamada cadowgu leeyihiin haddii ay dagaal iskaga hor yimaadaan. saanada ciidamada ee kuuriyada waqooyi waxaa kaloo ka mid ah gantaalaha KN 8 iyo KN 14. waana gantaalaha qaaradaha isiga gooshay ee lasoo bandhigay sanadkii 2012, waxaana ay labadiisii tijaabo ee ugu horreeyayba la kulmeen fashilaad. waxaana mid ka mid ah noocyada gantaalaha ee ugu xawaaraha dheereeya, kaasoo ugu dambeyntii tijaabadiisa guul laga gaadhay dhowaan August 2017. waana gantaalka la xaqiijiyay inuu gaari karo ciidda dalka Mareykanka.